liiska codbixiyaasha goobta lagaaga hubiyo liiska codbixiyaasha adigoo isticmaalaya suulkaaga bidix 7 gudoomiyaha goobta ka qaada labada warqadood ee codbixinta muwaadin iska hubi in lagu siiyo laba warqadood midaad ugu codaynayso murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo midaad ugu codaynayso xisbiyada qaranka warqadaha waa inaanay wax hore ku qornayn jeexnayn isla markaana ay leeyihiin shaabadii goobta si codkaagu sax u noqdo 8 kaarkaaga codbixinta u gudbi khadeeyaha goobta si aad u codayso 9 kadib gal ila xilka codbixinta magan oo fulinaya barnaamijka wacyigelinta ee komishinka runtii u soo xilsaaray gobolka degmada Oodweyne hortiisa gobolka Togdheer isku talaabta haddii aad caawin u baahan tahay waxaa ku caawinaya gudoomiyaha goobta ama qofkii kale ee aad ku kalsoon tahay 10 labada warqadood ee codbixinta mid walba gaarkeeda isugu laab si taxadar leh ugu rid warqadda codbixinta murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen sanduuqa codaynta ee gaaban warqadda codbixinta ee xisbiyada qaranka ku rid sanduuqa dheer 11 mar labaad ku noqo khadeeyaha goobta si fadhiyarta bidix loo khadeeyo kaarkaagana ka soo qaado 12 fadlan hore u sii qaada kaarkaaga codbixinta si nidaamsanna goobta uga bax gocondhaale tuulada gocondhaale ee degmada daad meelo ka tirsan waa magaalo xuduudeed yar oo kooban insha allah harjinaynaa inaan u gudbino sida fariintii loo wadaagno insha allah 7 gudoomiyaha goobta ka qaada labada warqadood ee codbixinta muwaadin iska hubi in lagu siiyo laba warqadood midaad ugu codaynayso murashaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo midaad ugu codaynayso xisbiyada qaranka warqadaha waa inaanay wax hore ku qornayn jeexnayn isla markaana ay leeyihiin shaabadii goobta si codkaagu sax u noqdo 8 kaarkaaga codbixinta u gudbi khadeeyaha goobta si aad u codayso 9 kadib gal ila xilka codbixinta oo calaamadii waraaqaha codbixinta waa gocondhaale oo hawlwadeenada komishinka ka socday ee gururka magan ay runtuu sharaxayaan maxaa leehdaa sawiradii bastaradaha iyo sanduuqa gaaban ninka dheer iyo safka iyo nidaamkaba insha allah xarsheynaya in hawsha guul lagu dhamaato maanta bishu 8 bishii 10aad 2024 waxaan wadnaa maalintii 5aad ilaa 6aad xilli dhamaan wadnaa khayr insha allah noqonayso